Soomaaliya ayaa rajaynaysa in saliidda iyo gaasta ku jirta ay isbeddel ku keeni doonaan dhaqaalaha waddanka. War fiican ayaa laga helay sahamin laga sameeyay xeebaha. Daneeyaasha caalamiga ee wada shaqaynta leeyihiin ayaa ka caawinaya sidii loo sahamin lahaa khayraadkani. Laakiin caqabado badan ayaa hor yaalla dhab ahaan. Waxaana ka mid ah muranka badda ee u dhaxeeya dalka dariska ee Kenya, halganka awoodda ee maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka u dhaxeeya, sharciga khayraadka oo aan jirin, dadka aqoonta u leh ee gudaha ku sugan oo tiradoodu ay yar tahay si ay ula socdaan in daneeyaasha caalamiga ay daacad ka yihiin. Sahamin ay sameeyeen shirkadaha Somali Oil Gas iyo TGS ayaa waxay ku heleen in ka badan 100 bilyan oo foosto oo isugu jira saliid iyo gaas oo ku jira xeebaha, waxaana qiimahoodu uu ku kacayaa 6 trilyan. Saliidda iyo gaasta ayaa kalluun ku jira badda gunteeda oo kale, waxaana ay tahay in la sameeyo sahamin badan si go'aan looga gaadho in la qodo. Daneeyaasha ayaa isu imanaya si ay wax u kala qortaan, waxaana Soomaaliya ay heli doontaa abaalcelin wanaagsan iyadoo dunidu aanay doonayn in dhibaatadu ay sii socoto. Saamintani ayaa waxa lagu sheegay in qiimaha lagu iibiyo riiga saliidda soo saara uu dhan yahay 200 oo milyan. Soomaaliya ayaa waxay u baahan tahay daneeyaal. Wejiga dambana waxa loo baahan yahay qalabkii lagu qaadi lahaa saliidda iyo gaaska. Khayraadka Soomaaliya waxa lagu qaadi doonaa maraakiib si loo sifeeyo, waxaana Soomaaliya ay heshiis ay la gali doontaa daneeyaasha caalamiga. Laakiin Soomaaliya waxay go'aan ay ka gaari doontaa inay maamusho hantidani. Dawladdu waxay go'aansan karaysaa inay dhisto goob saliidda lagu sifeeyo. Warshadda saliidda sifaysana qiimaheedu waxa uu dhan yahay ta u dhaxaysa 5 bilyan ilaa 15 bilyan, waana meesha ugu dambaysa laga soo saari doono khayraadka cayriin ee suuqa la geyn doona, waxaana u kala bixi doona wax soo saar kala duwan sida gaaska dabiiciga, diesel oil, petrol, gasoline, lubricants, kerosene, shidaalka diyaaraduhu ay isticmaalaan, afsol, heating oil iyo LPG oo ah shidaalka la kala saaray iyo kiimikooyin kala duwan.